dhagaxdhigan iyo dib u dayactirka xarunta biyo fariisiga ee degmada Boondheere ayaa laga bilaabay xaafadda Nasiib Buundo waxaana ka soo qayb galay shacabka ku nool waxyaha ay ka kooban tahay degmada Boondheere waana isku tashi ka yimid maamulka iyo shacabka Boondheere gudoomiyaha degmada Boondheere Seenib Yuusuf Weheliye oo ka hadashay munaasabadda dhagaxdhiga ayaa ka codsatay maamulka gobolka Banaadir inay gacan ka geystaan dhismo lagu sameeyo wadada Jirana Daa'uud oo kala qaybisa degmooyinka Boondheere iyo Warta Nabadda dacdaani alxamdulillah maanta waa maxay hayto dhagaxdhigi waa guush ugu horeysay maamulka iyo shacabka reer Boondheerana ayagoon u kala harin waxay ka qaateen kaalin weyn mudan gudoomiye waxaan kaaga mahad celinaa adaan ugu dhiiri gelisay hadaan adiga ahayn guushaas ma gaarin shacabka reer Boondheere waxna ma qabsadeen marka waa kaaga mahad celinaa dhiiri gelintaada iyo maxay tahay sida aad noo fartay in ummaddu wax qabsan kartana aad noo tustay gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo dhagax dhiga biyo fariisigan ayaa sheegay in dhawaan la bilaabi doono qorshe lagu sameyn doono goobaha biyo fariisiga ee magaalada Muqdisho waxa halka u joogno waxay tahay dhagax dhiga goobtan biyo fariisidka ah ee degmada Boondheere oo runtii dib weyn muxuu ahaa halkan uu ka jiray markuu roobka daana xaafadahan oo dhan ee biyihii qaadi jireen annaga qorshahan wuxuu yahay in si kumeel gaar ah hadda loo dayactiro loo qodo si roobka soo socda aysan guriyihii waxyeello u geysan annaga waxaan maamulkii shacabka waxyaalihii u dan ahna inaan u istaagno waa howlaha aan u joogno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gudoomiyaha iyo shacabka oo runtii wada tashi markii lala sameeyay la yiri arrimaha idin daran maxay yihiin ayay yiraahdeen arrimaha noo daran arrintan ayaa ugu horeyso sala socotaan maamulka gobolka Banaadir wuxuu sameeyay daraasad dheer oo aan ku sameeynay sidii magaaladan ay biyo dambe u fariisan lahayn waxaan diyaarin wax loo yaqaan master plan oo drainage ka ah oo aan rabno in muxuu ahaa dhawaan hirgelintiisii la bilaabo wax ka yar 2 bilood ayaa ka harsan bilowga xilliga guga oo ka binda xilliyada ay da'aan roobabka Soomaaliya waxaana qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir la kulmaan dhibaatooyin ka dhasha daadadka roobka